عليكم دمانتين سو dhawaada meel kasta joogtaan waa idin salaamayaa dabcan hadii aad halkan soo gaartay waxaan rabaa inaan kugu baraarujiyo muuqaalada ku jira qaybtan runtii waa muuqaalo kaaga baahan in hal mar iyo laba mar iyo ka badan inaad daawatid sababtoo ah runtii wax badan ayay ku badbaadin doonaan oo madax xanuuna jahwareer 6 bilood 8 bilood 7 bilood sanad 2 sano inay forex kaaga baxdo ayay ku badbaadin doonaan iska ilow fikradda ah inaad hadda lacag samaysid iska ilow inaad hadda signal iyo setup diyaarisid waxa uu qaataa waxaan sidii iskuul yihiin oo kale ama casar jaamacad yihiin oo kale lagugulana xisaabtamaya naftaada adigu xisaabi fiidiyoda waxa uu ka koobay inaad mid walba waqti ku filan siisid 3 jeer 4 jeer ilaa 10 jeer inaad ku soo celisid sidoo kale xasuusnow qaybtan fiidiyoda ku jira way isquseeyaan fiidiyoda mid ka horeeyay waxaan ka soo hadalnay trendiga suuqa market structure-ka impulsive correction integer oo impulsive kala helo intercorrection ku qaybsamo waxa soo dhan ba ka soo hadalnay kan kiibu quseeyaa oo hadii aad kii hore soo fahmin kana ma fahmin doonto sidoo kale waxaan rabaa in aad u xasuusnaatid qodob mar walba ardada aan ugu celceliyo oo ah hadda kadib maskaxdaada u diyaari inaad 10 qodob inaad isku hayn kartid 5 kubadood oo cirka loo tuuro 5 tabi inaad qaban kartid bal rabaa oo marka qodobkan lagu fahamsiyo kii ka horeeya xoori isku day inaad hadda mid u baratid hadhowna ogow in dhamaantood la isku keeni doono qodobkan ah institution candle currency ama wax loo yaqaan postage-da waa qodob aad u xasaasiya waa qodob furow ah dhammaan istaraatiijiyada suuqan ku galno oo dhan markii ugu horeysay waxa keenay qodobkan ama institution candle-kan qeexay inay jirto waxaani ninkii la aqoon jiray Richard Demille Wyckoff inta badan istaraatiijiyadeenu 95% waxay dib u noqonaysaa bugaagtii uu qoray ninkii la yiraahdo Richard Demille Wyckoff ee ku saabsanayd sida institutional tradersku ay suuqa u manipulate gareeyaan maadaama uu ahaa nin broker ah oo sanduuqa gadaashiisa fadhiya computer gadaashiisa fadhiya yatana u jeeda maalin walba dhaqdhaqaaqa ay sameynayaan brokerada qoran institutional traderska iyo bankska aan kaga soo hadalnay fiidiyoyada hore bilowga ah dabcan isku diidoona markii institution kan lagu xiyaa inaan qeexo yatana fiidiyogan dami ama boos ku qabo markuu ku dhamaado 200 oo jeer 300 oo jeer institution kan soo hel every time frame baa lagu heli karaa forward baa ku heli karaa one hour baa ku heli karaa daily baa ku heli karaa weekly baa ku heli karaa hadaba institution kan muxuu yahay institution kan sida caadiga waxa la yiraahdaa shumaca ugu dambeeya ee suuq before uu suuqaas kicin ama uu san daadan salahan suuqani imika waxaynu aragnaa inuu halkan ka kacay oo uu korkaas aaday before uu san dhaqaaqan xawliga bilaaban waxa ka horeeya hal candle oo opposite-kiisa ah jaraanka dhaqaaqadu cagaar yahay ama baay yahay candle-ka opposite-kiisa waa maxay waa casaan sida arkis candle-ka ka horeeya ka hor inta uu san dhaqaaq samaysmin ayaa waxa loo yaqaanaa institutional candle marka uu hoos joogo hoos ayuu yahay oo sidan ayuu hoos yaala marka uu kor joogana waxa raadaysaa suuq xawli u soo daatay candle-kiisa ugu horeeyay salaano kale suuqana xawli buu soo daatay arkis candle-kii ka horeeyay daadashadiisa meey candle-kan way korkiisii iyo hoostiisina waa kuwana okay dii aan too hour ka tagno si aan markuu sitso mid kale meey waa kana bika suuqan ayaa xawli u soo daatay dib aan bixi karnaa kuwa badan ayaan ku tusi karaa candle-kii koowaad hadda aan ku tusiimay waa kana waayaan candle-kan u qabsaday inuu postage yahay institutional candle yahay bika suuq ku xigsaday ayaa kor u kacay simple as that alright dad baa waxay yaqaanaan order block dad baa waxay yaqaanaan institutional candle qof wax uu yaqaana balse macnaha ku jira waa intaas suuqan xawliga u daatay muujeeda candle-ka ka horeeyay ayaa waxa la yiraahdaa institutional candle this candle ayaa laga hadlaya that candle is very important waana candle-ka runtii wax badan oo aan hadda isticmaali doono furo u noqonaya suuqan xawliga u daatay muujeeda ha candle-ka ka horeeyay basically maxaa loo yaqaanaa institutional candle ayaa la yiraahdaa this candle waxa la yiraahdaa institutional candle the only rule oo candle-kan ku xiga marka ama candle-kan inuu institutional candle-ki yahay ah waxa lagu garanayaa waa in ay ku xigsadaan shumaciyo burburan oo xawli u socda oo suuqa dhaqaajinaya kow institutional candle-ku laba shardi buu leeyahay wuxuu leeyahay laba shardi kaliya ayuu leeyahay institutional candle-ku maxay kaliya labada shardi kow waa maxay maxay leenahay badana qoraaladan waa sii qori jiray laakiin maadaama wax aad u yar tahay waxa ma sii qorin shardiyada lagu garto shumaca institutional candle baa soo gaabsanayna okay shardiga koowaad waa maxay waa in shumacyada ku xiga ay xawli suuqa u daadiyaan meeye waa kuwan waa in shumacyada ku xiga ay xawli suuqa u daadiyaan okay ama xawli suuqa u dhaqaajiyaan
waa in dhaqaaq xawli u daata ama u kaca waxay ku xiran tahay meesha laga helay ay ku xigsadaan. qodobka labaadna waa maxay? kaas waa qodobkooda. qodobka labaad waxa weeye dhaqaaqaasi marka uu daadanayay waa inuu opposite zone ka jabiya. opposite zone maxaa laga wadaa? kasoo horjeedkiisi. kasoo horjeedkii meeshaan ayaa ku xigtay. suuqan marka uu soo daadanayay waxaa la rabay inuu halkan ka laabto, because mar hore ayuu ka laabtay suuqu halkan, mar labaadkii inuu ka laabtay ayaa la rabay, laakiin kama uusan laabana waa uu jabiyey opposite zone-ka. sharciga labaad muxuu noqonayaa? waa in uu opposite zone ka jabiya. labadaa sharci kaliya ayaa institutional ka dhigi kara. waa in uu dhaqaaqaas xooga u socday uu jabiyaa the opposite zone. zonka kaasoo horjeeday waa inuu jabiyaa. simple as that. Alright? hadda maxaynu ka hadlaynay? institutional candle-kii kan ka horreeyay may aan ka hadlaynay? waa kana. This is institutional candle. Why? Because may candle-ka horta candle-ku waa kana. maxaa ku xigsaday? shumacyo waaweyn oo xoolo u soconaya. opposite zone-kii waa kana. simple as that. because meeshaan sel hore ayaa kasoo bilowday. maxaa la rabay mar labaad in laga celiyo? lagama celina, waa la jabiyaa, laga kormaray. wuxuu ku sifoobayaa institutional candle ayuu ku sifoobayaa. simple as that. madba midka uu dhaqaaqa ka bilowday ka xoog weyn yahay uu ka fiican yahay. kan muxuu noqonayaa hadda? institutional candle ayuu noqonayaa. Why? kow, shumacyadii waaweynaa ayaa ka bilowday. labo, waxa la yiraahdo opposite zone-ku uu jabiyay. so IC candle meesha aad u bixinaysid waa inaad labadaa shardi ka fiirisid. mid kale meeya hadda aad u weyn yahay kan oo kale. kan haddii aan qabano fiiri, shumaci mee waa kii kaa yariiskaayo meesha ku jira. the big candles baa ku xigay. opposite zone-kiina waa la jabiyay. see, maanta oo dhan any time frame 4 hour baan joogsanaa, 8 hour kan tegina tusaale ahaan. kuwan hore oo dhan tirtir 8 hour ka ayaan hadda joogaa. waxaan joogaa hadda 8 hour ka ayaan joogaa. may hadda institutional candle waa kana. this candle-ka cagaarka yarka weeye, because shumacyo burburan oo xoog u socda ayaa ku xigsaday. opposite zone-kiina waa jabiyay. simple as that. alright? asaga oo buy ah ama suuq buy oo ka bilowday raadi. laba meelood ayaad ka heli kartaa, laba habna oo heli kartaa. fiidiyoyada dambe ayaad kaga sii bogan doontaa. waa kana institutional candle may. this is an institutional candle. the last candle before the big move for buy ah. big move for buy ku xigtay. opposite zone-kiina waa la jabiyay. that's all it takes. haddaba macnaha ku jira waxa weeye institutional candle-kan wuxuu inaga caawin doonaa mustaqbaliyan marka meesha lagu soo laabto ayay waxayna siin doontaa demand zone iyo supply zone. alright? waxayna siin doontaa demand zone iyo supply zone, ayagana aynu gaarkooda uga hadli doono. taa maxaa la rabaa inaad baratid? waxaa la yiraahdo institutional candle noocu yahay. daily ayaan kaa tusayaa, iska dhaaf ayda warka. daily ayaan institutional candle kaa tusayaa. every dhaqaaq oo xawliya raadi. shumac yarka ayaa ka horeeya. dhaqaaqan xooga u kacay, shumac yarka ka horeeyay waa kaasa. that's your IC. alright? maxaa loo raadinayaa? mustaqbalka ayuu wax macno kale ku sameyn doonaa. laakiin hadda maxaa rabtaa inaad baratid? IC waa kana. big move baa ku xigay. opposite zone waa la jabiyay. simple as that. postage ayaa la yiraahdaa. waa meesha baabuurka hadhow ka dhaqaaqaya. big move candle ka horeeyay waa kana. opposite zone-kii waa kaasa waa la jabiyay. I hope inaad institutional candle waxa uu yahay fahamtay. haddii aadan fahmin videogan kusoo celceli ilaa aad macnihiisa ka keenaysid. sababta wuxuu furo u noqon doonaa inta badan videoyada ka dambeeya videogan. haddii aadan institutional candle fahmin, dhimanaan supply zone ma fahmi doontid. entry wuu kaa wareeri doonaa, targetkuna wuu kaa wareeri doonaa. isku day marka inaad keligii gaar ugu celcelisid, keligiisna aad gaar u fahmid. inta aynu videogan mid ku kulmi doono, amaana Allah.